aad bay u mahadsanyihiin yaasiin abiibiye inankiisa ridwaan yaasiin abiib haddaba barnaamijkeeni baynu gudageli doonaa waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa sida waqtigiina qaaliga ugu soo hurteen soo dhaweynta professor xusnaan sabta waxaan u yeedhiyaa xaashi ismaaciil oo xoogaa inaga siiya profilka professorka inoo akhriya ama inooga sheegay taariikhdiisa wax kooban عبد الواحد بودي يقدم بيصير سير صعب كوير أهم حد عاي ودودو كعيا صعب مكتب مرة بعد مقعد جاي مقعد بروفيسور أنا قبل مرتي ترى ما يسان مقالة كتر سنة أيام دوكم هاد نغيا سيد عبد البيد دوكم هاد نغيا بروفيسور بوا وضع تكانا تاريخ غير بقول يوم وضع آخر كريو لكن waxaan isku dayayaa inagoo waqtigaaynu habsaanayna aan isku soo dhaweynayo horta Axmed waa international professor ma professor Soomaaliya ma professor Somaliland oo kaliya laakiin waa professor caalami ah inkastoo yahay caalami ma kadee website yar baba iska raacsado yar suuq u galay laakiin waa caalami rasmi ah inta kadib Axmed wuxuu joogay وأقرأ background في سهرة وغير قبيلة وسوماليلاند وأنا سوماليا. وحشوا جمريكا نفرت سنوات 3 سنوات وردها
iyo 30 uu ahaa professor 18 ka mid uu ahaa madax jaamacadeed ama dean of university wuxuu ku takhasusay international economics and politics dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah axmed waa suugaanyahan wuu heesaa wuu suugaan jecel yahay waa nin bulshadu heer kastay leedahay la jaan qaada wuxuu qoray 5 buug wuxuu qoray 70 maqaal ama 70 article oo international wuxuu ka axmed soo maray haddana khaldanayn 59 dalkii 59 ugu dambeeyay oo jaamacadeeda ka hadlaa waxay ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland يعني سوى بس أنت أصلا كنت قاعد. بروفيسور كي وينسيي إن حشوه كي مستيد كله. كواحد نوبة هنقف قضية أو إننا جميلة أو سودوية أحمد كسودوية كمية تيجي نروح كولومبوس وأحمد قلعتي. mudanayaal iyo marwooyin wiilal iyo gabdho dadweynaha reer Somaliland ee caawa sida quruxda badan ee sharafta badan halkan isugu yimid iyagoo soo dhaweynaya ka hor imanaya arkaya ku talagalay inay dhageystaan Professor Ahmed Ismail Samatar ilaahay baa mahadle marka hore aad iyo aad baan sida quruxda badan ee uga soo qayb gasheen ururkeenan caawa shirkeenan caawa aynu isugu nimid ee ujeedadu ay tahay inaynu ka faa'iidaysano aragno oo dhageysano inankeena Ahmed Ismail Samatar Professor Ahmed Ismail Samatar waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gobolkan Ohio magaalada caasimadda Columbus madashan sharafta leh ee lagugu talagalay in lagugu qaabilo habeenkan caawa oo aad ku kulantaan madax mudantii reer Somaliland rag iyo dumar wiilal iyo gabdho waad u jeedaa wax kaa qarsooni ma jiro qof waliba farxad buu halkan la fadhiyaa isaga amba iyaga oo ku soo dhaweynaya intaa haddii aan dhaafo dadka ku soo dhaweynaya oo ay ku jiraan dad kale oo Soomaaliya oo fara badan oo ka soo qayb galay xafladan oo iyaguna hore laga yaabo inaanay kula kulmin kuna soo dhaweynaya iyagana waan u mahadnaqaynaa wayna soo sharfeen adigana way ku soo sharfeen Allah sharfo intaa haddii aan kaga baxo soo dhaweynta hore Ahmed Ismail Samatar abti waxaan kuu sheegayaa dadka ku soo dhaweeyay ee halkan fadhiya waa adeerada waa abtiyaasha waa habaryaraha waa idooyinka waa ilmaabtiyaasha waa ilmaadeertayaasha waxaanu ku talagalay in waanu ku maqli jirnay aad horteeda timaado oo aanu halkan kugu qaabilo waqtiga aadna soo siisay safarka dheer aad soo gashay aad iyo aad baanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa kol haddii aad nabad qab noogu timid aadna waad mahadsan tahay
halkan oo kale marka la isugu yimaado ciidina dalkii kaagamay dambeyn adiga ugu dambeeyay wax ka yimaada adiga ugu dambeeyay qof tuulo walba soo mara oo indhihiisa wax u soo arkay dad iyo dalba adaa soo arkay waxaan salayaa anigu marka hore dadweynihii dadkii reer Somaliland salaan qaaliya kaliya baa ka soo goday ayaan halkan uga gudbinayaa waxaan leeyahay dareenkayagu wuu idinla socdaa waanu idinla joognaa waanu idin maqlaynaa waxaanu aad ugu farxanay deriska caalamka u dhigteen sida quruxda badan ee u xalishaan khilaafaadka ku yimaada dalkeena marka dawladda oo dhan laga hadlayo waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa dhammaan mudanayaasha guurtida iyo shirgudoonkooda waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa xildhibaanada golaha xildhibaanada iyo shirgudoonkooda waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa dawladda amba xukuumadda talada haysa ee uu ka madax yahay madaxweynaheena rugcadaadiga ah Axmed Maxamed Silaayo waxaan dhammaan u dirayaa salaan gaar ah iyo hambalyo shicibka soo jeeda ee nabadgelyada iyo horumarka iyo halka gaareenba iyagu ku tallaabsaday opportunity amba fursad aanay heli jirin ta heleen dalkoodii iyo dadkoodii ku dadaalay inay dib u dhisaan aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay si wanaagsan oo ku talagal leh oo qurux badan ayaynu caawa isugu nimid waxaan filayaa in aynu kala dhergi doono Professor Axmed Ismaaciil Samatar wax damboon intaa ku darayaa ma jirto